بسم الله الرحمن الرحيم كل wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada xogta wararka ee maanta magacaygu Cabdiqaadir Hore caqabada ku jira aad ku daawan doontaan waxa kamid ah taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya waxa uu ka warbixiyay weeraradii xalay ka dhacay xabsiga dhexe sidoo kale wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxa ay sheegtay in la soo afjaray halista COVID-19 ee Soomaaliya رئيس وزراء دلكات لبنان حسن ضيب وإسعاد sidoo kale waxaad ku maqli doontaan rabshado ka jira Mareykanka gaar ahaan magaalada Chicago qodobadaas iyo wixii kale nagu soo qorray barnaamijkeena duhur ku daawan doontaan barnaamijka waxa saaray Cabdinaasir Abshir Cali anigoo Cabdiqaadir Hole ayaa halkan iskala socodsiinaya oo mar kale iyo xogta wararka isku soo noqod wanaagsan daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 11 bisha 8 Agoosto sanadkuna waa 2020 aynu ku bilownay taliyaha ciidanka xooga waa taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya aan iraahday General Mahad Aadan ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda dhabta ah ee xabsiga ka dhacday xalay iyo wararkii sida uu ku bilowday waa kan taliya Mahad oo warbaahinta la hadlay waxa dhacday maxaabiistii shaqaynaysay oo gudaha ku jirtay waana kuwii raashinka karinayay oo ayaga raashinkooda iyo waxooda iyo nidaamkooda karsada oo gudaha ku jirtay yaa waxay qori la qabsadeen askari waardiye ka ahaa oo gudaha kula dhex jiray oo hawshii la waday qoriga la qabsadeen nasiib wanaag si fudud qoriga markii ay la qabsadeen gacantooda uu ku galay waxay bilaabeen dagaalka dhacay waa noocaas dhibaato badan bay soo hoysay mar haday gudihii xabad ka bilaabatay dagaalkaas wuxuu keenay dhimasho iyo dhaawac isla markii waxay boobsiyeen askari labaad oo kor saarnaa bay toogteen askarigiina waa soo dhacay qoriyihii ay haysteen oo gacantooda galayna laba qori ay noqotay labadii qori ayay ku dagaal galeen marka baabka waa sidaas waxa meesha ka dhacayna waa inta ayada wax ka gudubsanna ma jiraan iminkana aynu eegno Lebanon رئيس وزراء waddankaas Lebanon Xasan Dayib ayaa waxa uu telefishinka qaranka u sheegay in uu guud ahaanba iska casilay xilkii uu ka hayo waddankaas Lebanon رئيس وزراء Lebanon ayaa ku dhawaaqay in uu xilka iska casilay kadib qarixii dhawaan ka dhacay magaalada Beirut oo ay ku dhinteen in ka badan 200 qofood رئيس وزراء Xasan Dayib ayaa iscasilaadiisa ka sheegay telefishinka qaranka shacabka dalkaasi ayaa tilmaamaya in ay ahayd in xilli hore si wanaagsan looga taxadiro amba loogu fikro kaydinta maadada ammonium nitrate ee talaadadii ku qaraxday dekada caasimadda waddankaasi ee Beirut shacabka ayaa waxa ay mas'uuliyiinta dawladda ku eedeeyeen in ay wadaan falal musuqmaasuq ah iyo maamul xumo madaxweyne Michel Coun ayaa waxa uu sheegay in 2750 tan oo maadada ammonium nitrate si aan ammaan ahayn loogu keediyay maqaasiin halka ku yaala muddo 6 sano ah markana aynu soo laabano wararka dalka Soomaaliya wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in guud ahaanba ay soo afjartay halista COVID-19 ee Soomaaliya waxaana ay sheegtay in wasaaraddu baaritaan iyo tirkoob la sameeyay ay sheegeen in tirada dhimashada tan iyo markii COVID-19 uu ka bilowdo Soomaaliya ay dhinteen 93 qofood waxaana dawladdu ay sheegtay amba wasaaraddu ay sheegtay in baaritaankii ugu dambeeyay la sameeyay uu noqday eber iyo in Soomaaliya aysan joogin qof uu qabo cudurka COVID-19 iminkana aynu eegno Mareykanka magaalada Chicago ee waddanka Mareykanka wararka imaanaya waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka dhaceen bannaanbaxyo rabshado wata iyadoona magaaladaasi lagu soo rogay bando ka bilaabanaya 8 habeenimo ilaa iyo 6 subaxnimo booliska magaalada Chicago ayaa xadiday galaangalka magaalada kadib markii habeen hore rabshado iyo bilaqaysi ay ka dhaceen magaaladaasi Chicago sidoo kale waxa la toogtay 2 qofood oo ka tirsan booliska taliyaha booliska David Brown ayaa sheegay in aaga la xadidi doono laga bilaabo 8 habeenimo ilaa iyo 6 aroornimo si loo kala yareeyo rabshadaha ka socda magaaladaasi Chicago fiidyada warbaahinta ay faafinayaan ayaa waxa ay sheegayaan dad shacab oo dhibaato ka soo gaartay weerarkaasi ayadoo mararka qaarkood ay boolisku adeegsanayaan sunta dadka kaga ilmeysiisa iyo waliba biyo ka dhacaya qoryaha ay adeegsanayaan sidoo kale
xaaladda Mareykanka gobolada qaarkood ayaa waxay u muuqataa mid abuuri karta rabshado ay ka dhashaan in ay burburto guud ahaan xukuumadda Mareykanka ayadoona madaxweynaha wadankaasi iyo hay'adaha ammaanku ay telefishinada kala hadlayaan dadka dhibaatada geysanaya iyo kuwa loo geysanayo. sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu ka cabsi qabaa maadaama ay soo socoto doorasho in arintan ay ku biyo shubato burbur hantiyadeed iyo burbur soo gaara guud ahaan wadanka oo dhan. qaybta ugu dambeeyay barnaamijkeena ayuu isla soo gaarnay daawadayaal iminkana aynu eegno xubinta saadaasha hawada magaalada Muqdisho ee caasimada dalka waxaa heerkulkeeda lagu tilmaamayaa inuu yahay 26 digrii centigrade waxaana qorraxda saaka Muqdisho ay soo baxday 6:54 daqiiqo waxaa la filayaa in dhacdo 5 iyo 6 iyo 10 daqiiqo insha Allah. sidoo kale magaalada Kismaayo waxaa heerkulkeeda lagu tilmaamayaa inuu yahay 30 waxaana qorraxda saaka Kismaayo soo baxday 6:55 daqiiqo waxaa la filayaa in dhacdo 7 waa 5 iyo 64 daqiiqo insha Allah. magaalada Hargeysa hadii aynu eegno magaalada Hargeysa 28 degree centigrade ayuu marayaa heerkulkeedu magaalada Hargeysa ka qorraxdu waxay soo baxday 6 iyo 11 daqiiqo waxaan filayaa in dhacdo 5 iyo 7 iyo 10 daqiiqo insha Allah. guud ahaan barnaamijkeena xogta wararka intaas ayaan ku soo gabagabeynaa tan iyo barnaamij lamid intaan kulmi doono Britol waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. waxaana inaga xusid mudan in dadka naga tuxan ay naga daawan karaan markii uu dhaafo barnaamijkeena aaladaha internetka aynu ku leenahay isla internetka Twitter, Facebook iyo YouTube. Salaamu alaykum.